Soonka ayaa siyaabo kala duwan u saameeya nafteena, qaraabada, bi'ada iyo nolosheena, laakiinse ma dareena inta badan qiimaha soonka. Wuxuuna baraa juhdiga, karaamada, deeqsinimada, samirka, macaamilka dunida iyo dadka, iyo inuu qofku ku qanco hadba waxa uu eebesiiyey. Waana qanacsanaanta waxaa cajabisay boqoradii dunida soo maray oo dhan, inkastay haysteen maal, awood iyo mooro. Hodanimaduna maaha xoolo badan oo la haysto, waase hodanimada nafta iyo qalbiga, sida uu inoo sheegay nabigeenu sallallahu calayhi wasalam. sanadii 2010 ayaa Lauren Booth oo ahayd saxafiyada Ingiriiska lana dhalatay haweeneyda uu qabo ra'iisul wasaarihii hore Ingiriiska Tony Blair ilaamisay inay islaantay, waxayna ka sheekaysay qisada sababtay inay islaanto. waxaana qisadan ay dhacday sanadii 2008 iyadoo socdaal ku tagtay Falastiin, waxayna booqasho ugu tagtay qoys Falastiiniyiin ah. xilligaa markaasna waxaa lagu jiray bishii Ramadaan. waxaana garaacay bay tiri albaabka, waxaana iga furtay hooyadii guriga joogtay, waxayna igu salaantay bay tiri asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat. soo galayayna igu tiri. waxayna tiri hooyadan way werwaraysay qurux iyo farxad, indhaheeduna way ifayeen. waxayna iga furtay albaabka sidii inaan ugu soo dhaweynayso qasriga Taj Mahal, sidii inay ku jirto goobta ugu quruxda badan dunida. waana markii aan guriga galay aan ugu tagay waxba ma dhexoolin, dhulkana wax ma goglanayn. waxayna deganayd gidaar, saqaf iyo dhul. waxa keliya oo yaalay roomi ayuu ahaa uu dul yaalay, cunada ay ku afuri lahaayeen 10 qof oo reerku ka koobnaa. waxayna cunayeen 3 saxan xumusa, saxan salaad uu ku jiray, iyo saxan uu ku jiray rooti. waana la fadhiistay, waanan diiday inaan la cunteeyo. ilaah baanan ku dhaartay, waxaan sameeyey wax walba si aan uga cudur daarto, anigoo iyaga u naxariisanayay. laakiinse mar walboon diido way ii soo kordhinaysay rootiga iyo xumuska, iyadoo igu leh waxaad noo tahay maanta marti. way iga diiday cudurdaarkii, waanan la cunay anigoo caraysan islaamka iyo qur-aanka oo gaajaysiiyey qoyskan masaakiinta 30 cisho. waxaana nugu caraysnaa qur-aanka sababta loo amray hooyadan miskiinta inaysan biyo cabbin, iyadoo waxa keliya haysataba ay tahay biyo aan cabbitaanka xitaa ku wacnayn. waxaana weydiiyey sababta ay u soomayso bisha Ramadaan, maxay tahay xigmadda ku jirta. waxaana hooyadana igu tiri, waxaan u soomayaa bisha Ramadaan si aan u xasuusto masaakiinta, fuqarada iyo weliba dadka aan waxba haysan. waxaana nugu agdhowaanayaa ilaahay, waxaana nugu mahadinayaa waxa uu siiyey oo dhan. waxaan la yaabay haweenaydan bay tiri, adduunka aan waxba ku haysan, hadday doontana aan weligeed waxelin. qalbigeeduna waxa uu ka tababartay inuu isla weynida aysan dareemin, kana fikirto fuqarada iyo inta aan waxba haysan. waxaanay cajab geliyey hooyadan miskiinta, haddana caloosheeda gaajaysiisay si ay Allah ugu mahad celiso. waxaana iyadoo ay gaajaysan haddana ay u mahad celinaysaa Allah. waxa ay galay qiiro iyo dareen jirirco leh bay tiri. waxaanan isiri haddii islaamnimadu saas tahay waan islaamayaa. waxay tiri maalin maalmaha ka mida bishii Ramadaan 2010 ayaan galay masjid ku yaal magaalada London. waxaanan dareemay markii igu horeyseen cagaha geliyey shucuur aan la sharixi karin. asbuuc kadibna anoo jooga masjidka ayaa la ii sharaxay suurat al-Faatiha iyo micnaheeda weyn oo aan la yaabay, maadaama faatixadu tahay muftaaxa bilowga salaada. waxaanan ku dhawaaqay kelmadihii cuslaa ee shahaadada oo la ii qabtay. dabadeed waxaan ku noqday gurigaygii, waxaanan isugu yeedhay 2 gabdhood. waxaanan u sheegay in hooyadood rabto inay islaamnimada qaataan. waxaanan weydiiyey ra'yigooda. waxayna i weydiiyeen 3 su'aalood oo aan aad ula yaabay. haddii aad islaanto, hooyo ma noo sii ahaanaysaa? waxaanan ugu jawaabay haa, weliba waxaan ahaanayaa hooyatii ugu fiicnayd. markii aad islaanto kadib ma cabbaysaa khamro ayay i weydiiyeen bay tiri. waxaana lagu jawaabay maya, khamro dambe ma cabbayo oo waa layga mamnuucay. markaad islaantay kadib ma xiranaysaa dhar khafiifa oo jidhkaaga muujiya? maya, islaamnimada kadib waxaan xirtaa dhar asturan, timahaygana waan daboolaa baan ku idhi. gabdhahaygii way igu farxeen, waxayna ii sheegeen intuba inay yihiin wax fiican oo nolosha bini'aadanka ku saxsan. wayna ila qaateen bay tiri, sidii ayay iyaguna ku islaameen. kadibna haweeneyda Booth waxay u shaqayn jirtay inta badan
samafalka islaamka waxayna taageersanayd dadka islaamka. Ay ku cajabisay qisadan cajiibka badan, like oo la wadaag asxaabtaada.